شرف وحي إيتاهاي ونان قارة إن المانتك سوق يبقى مناسبة دان ورنتي مناسبة دي بدل لوجو تاجيو حنان قرصور وعدد إنه كهنا قاعد دلك أيو صدق وياهاي رنتي آدي عن رنتاس شرف يقولتاي وأنا هاد نقيا دمان تتكستو كقيب قاعدتي أما أباب الشيء ugu horeyso maxkamadda sare iyo hay'adaha caalamiga ah wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha caalamiga ah ayagana runtii ku caawiyay dawladda Soomaaliyeed sida UNDP iyo UNSOM iyo dhamaan hay'adaha kale aad iyo aad baan dhamaantiin ugu mahadnaqayaa kaliya wax yar baan rabaa inaan iraahdo dardaaran yar oo aan siinayo dadka la rabo inay ka faa'iideystaan fursaddan waa fursooyin qaali ah sidaad aragtaan waa tababar ka duwan tababaradii hore waa tababar leh buug iyo manual diyaara oo khubaro ay muddo ka soo diyaarinaysay aqoon-yahano Soomaaliyeed ay soo diyaariyeen jaamacado macallimiintu ay soo diyaariyeen maxkamadda sare ay wax ka soo diyaarisay xafiiska xiraalintu uu wax ka soo diyaariyay loogu talagalay la isleeyahay waa baahidii ugu weyneed oo garsooreeyaalku ay u qabaan waa baahida ugu weyneed ee xiraaliyaashu ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee kaaliyaalku ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee gaarsiyaalku ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee registrarka iyo dadka hawlwadeenka garsoorka ay u qabaan laga fikiray runtii oo input badan iyo waqti badan la gelinayay in duruus comprehensive ah oo si toos ah u taabanaya baahida dhabta ah ee garsoorka in loo soo diyaariyo runtii waxaan leeyahay marka dadka fursadaas helay waa inay fursadda ka faa'iideystaan oo uga faa'iideystaan laba siyood waqtiga oo dheeraan duruustana ay qaataan ayna noqonin dad marna yimaada marna ka maqnaada kalaasyada waayo waxba ku dhaafay waxaan idinku boorinayaa oo mar walba idinka codsanayaa dhammaan dadka beneficiary-ga ee ka qayb qaadanaya efforts aad iyo aad u fara badan ayaa runtii la soo geliyay in maanta meeshan wax soo gaarsiiyo oo tababarkan la qabto inaan la dayicin ee laga faa'iideysto tan labaad oo aan iyagana ku boorinayo waxa weeye wixii aad barataan oo idin kordha waa in laga arkaa goobihii shaqada ayadana goobtii shaqada waa in laga arkaa wixii la idin soo kordhiyo haddii ay noqoto marartu walaa adri ama wixii aan soo bartay waxba ma aragtay kuma practice garaynayo meeshii waxay noqonaysaa marka cid alla cidii wax ka geysatay oo dhan maxaa la dhihi jiray hal bacaad lagu lisay ayay noqonaysaa marka in ayadana la arko practicality-ga wixii aad barateen in goobtii laga arko haba yaraadee runtii waa fursad qaali ah in laga faa'iideysto u baahan wax badan waxaan u daynayaa madaxda iga dambaysa runtii oo arrimaha wax badan ka og laakiin waxa kaliya aan rabaa in aan xuso waxa cabasho badan ayaan maqlaynaa cabashadaasi ma cadaalad baa ma sax baa ma khalad baa waqtigeeda ma gaarayo waxaan ogahay inteeda badan inay cabashadaasi aysan sal qaanuuni ay lahayn ee dana khaas ah laga leeyahay waxaan idinka codsanayaa inaan waxaas idin saameynin laakiin shaqadiina aad si hufnaan u qabsataan shaqo hufnaan leh oo nadiif ah inaad ummadda gaarsiisaan garsoor qofka haya maalin walba waa laga cabanayaa dhinaca mar walbaaba ay ka aan sida uu asagu rabo wax u dhicin uu cabanayaa wuxuu arkaa in cadaalad darro lagu sameeyo especially markaan Soomaali ahaan u soo noqono cadaaladda waxaan u naqaanaa sida aan anigu rabo hadaan waayo cadaalad darro lagu sameeyo taas waa ognahay taa macnaheedu ma aha garsoorka ayaa asagana kulligiis 100% wanaagsan macnaheedu ma aha waa la ogyahay khaladaad baa jira waa la ogyahay somehow waxaa jira nooc ma corruption in yar oo khaas ah ay ku mashquulsan tahay waxaan rabaa inaan idin sheego in dabagal iyo baaris ay ku socoto qof kasta oo lagu helo hay'adu doona ha ahaado garsoorka ah waxyaabahaas corruption-ka talaabo sharci ah inaan cidna looga haybisanin mana ka yeelayno in garsoorkii oo dhan sharaftiisii shakhsiyaad gaar ah ay dhaawacaan oo ay maalin walba wax intay khaldaan garsoorka loo saariyo mar dambe kama yeelayno
arrintaa waa ka hortegaynaa waana annagoo ka wada shaqaynayna maxkamadda xiraalinta hay-adaha baarista waxaad ogaataan in laga bilaabo ayna sidii hore xaaladdu ahaan doonin oo baarista ay dhacayso intaa markaan ka baxo waxaa maanta marti nooc oo sharaf ii ah inuu joogo guddoomiyihii maxkamadda sare guddoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka guddoomiye sidii uu garjaqaankuba ka dhawaajiyey garsoorku wuxuu tabanayaa in wax badan runtii mudnaantii uu lahaa aan la siinin oo la siiyo kaliya hay-adaha kale ee fulinta iyo baarlamaanka maadaama aad khabiir tahay maadaama aad muwaadin Soomaaliyeed oo wadani aad tahay muddana xilal kala duwan waddanka aad ka soo qabatay maantana fursad ay noo tahay waxaan ka codsanaynaa adiga iyo wasiirka cadaaladda oo executive-ka nagala joogaba in doorka uu garsoorku leeyahay mudnaantiisa la siiyo xukuumadda maxkamadaha wadooyin looga cawdo oo sharcigu uu tilmaamay baa jira qofkii cadaalad darro ka tabanayo in wadooyinka loo maro laakiin sida kale in la saxo waxaan ayidayaa this is the test baarlamaanka ku ah go'aankii maxkamadda sare ee gaartay ee khuseynayay si toos ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka annagu shakhsiyaadkaas dhanka ma lihin qofku doona ha noqdo laakiin waxaan qiimeynaynaa go'aanka maxkamadda inuu dhaqan galo taadista waxa aan rabno inaan aragno waxa weeye rule of law inuu shaqeynayo hay-adihii separation of power-ki inay shaqeynayso go'aamada sida sharciga uga soo baxa baarlamaanka aan khasab ugu nahay annagu inaan fulino inaad baarlamaankuna uu ku khasban yahay go'aanada maxkamadaha ka soo baxa without any condition without any wax shardi ayadoon ku xirnayn in la fuliyo taana waa idinka fadnaa waa ku dheeraaday runtii arrintaas intaasaan rabay inaan caddeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hal qodob aan u diro iyagana notice yar aan u diro bahda saxaafadda waxaan dareemayaa inay wax badan oo aqoon darro ay jirto oo xagga shuruucda ah sidaa darteedna ay maalin walba khaladaad sharci oo faldambiyeed uu ka dhalan karo ay ku jiraan waxaan rabaa inaan bahda saxaafadda xasuusiyo dacwad maxkamaddu ay gacanta ku hayso ka hadlideedu waa faldambiyeed idaacad in looga falanqoodaa waa faldambiyeed dad dhinacyo ah oo daneynaya inay ka hadlaan inta idaacad iyo telefishin la soo fariisiyo waa faldambiyeed mar dambana kama indha qabsan doono cid kasta oo ku kacda contempt of court ama faldambiyada noocaas ah cid kasta oo ku kacdana sharciga ayaan loo hortegaynaa aad iyo aad